Ma ogtahay daawadii haddii aad ku qorto tiradan Google-ka ama browserada kaleete ee wax lagu baaro internetka inay ku soo baxayaan dad madaxa kula jira qaboojiyaal ama talaagado. Waa lambar caan noqday oo haddaad ku baartay internetka waxaad arkaysaa sawir dad madaxa kula jira talaagado ama qaboojiyaal. Sheekadan waxa ay ka bilaabatay kadib markii 2009kii farshaxan yaqaan reer New York ah oo la yiraahdo David Horowitz soo dhigay koontidiisa Flickr sawir isaga oo madaxa kula jira qaboojiyo. Waxa uu ciwaan uga dhigay boostigaasi lambarkan 24154393 waxa uu ka yimid isku darka lambarka taxanaha ama serial lambarka ee qaboojiyaha uu lahaa markaasi uu kula jira ninkan la yiraahdo David oo lagu daray lambarka barcode-ka oo ay lahayd bacdi gir cagaaran oo ugu jirtay talaagada iyo dhowr xirmo oo baastada Jabaaniiska ee sooba loo yaqaan oo barafaysan oo ugu jirtay qaboojiyaha xilligaasi barcode-ka ay lahaayeen. Muddo gaaban gudaheedna lambarkani waxa uu noqday ereyga raadinta ugu badan ee mashiinada wax gooba ee internetka. Markii arrintaasi ay noqotay mid si weyn ugu faaftay goobaha internetka, sawirro badan oo la mid ah ayaa la soo geliyay arrinkii wuxuu noqday challenge. Waqti aad u yar iyadoo la adeegsanayo lambarkan waxa ay keentay in sida dabka uu si dhaqso ah ugu faafo. Sidaa darteed arrinkani waa wax qof kasta uu sameyn karo. Waxa ay ku xiran tahay kaliya inaad soo dhigtid sawir iyo sidoo kaleeto posting oo aad ciwaan kaga soo dhigtid waxa aad doonayso inay viral noqdaan. Deetana qof walba hadduu ereygaasi raadiyo oo Google-ka iyo mashiinada kaleete wax goobo ku qoro waxa uu soo bixi doona sawirka iyo wixii aad ku dul qortay.